aayadda tani ku kab noloshaada nooc kastoy tahayba xaalad shaqo markaad ku jirtid ama mid cibaada markaad ku jirtid iyo nooc kastoy noloshaadu tahay iyo dhaqdhaqaaqaaduba aayaddan noloshaada ku kab aayaddan noloshaada ku taagee culays walba waa fududaanayaa daynta waad iska gudaysaa noloshu waxay noqonaysaa nolol fudud ilaahay idinkiis tabaaraka wa tacaala ilaahay baa kuu furaya webiyaal risqi ah oo dhinac walba ah talow aayadda sidaasi u qiimaha badan iyagoo aayaadka ilaahay dhammaan ay qiimo badan yihiin waa tee suuratu al-anfaal bay ku jirtaa aayaddan sideeda qur-aankan ka kooban 114 suuradood cajaa'ibtiisu ma dhammaadaan mucjisooyinkiisu ma haraan saacadba saacadda ka dambaysa maalinba maalinta ka dambaysa isbuucba isbuuca ka dambeeya bilba bisha ka dambaysa sanadba sanadka ka dambeeya mucjisooyinkiisa caalamka u soo baxaya wuxuu ka warramay baa noo soo baxaya inuu arkaynaa indhaheenna qabanaya caafimaad adduunya mid aakhira buu sabab u yahay qur-aanka nolosha barakadeedu wuxuu u yahay mid furfura maasha allah haddana waxaa jira aayada kala duwan suurado kala duwan oo qur-aanka ka mid ah oo si gooniya loogu tijaabiyey arriban gooniya oo nolosha ka mid ah oo ilaahay sabab ooga dhigay in arrimahaasu ku fududeeyo ku barakeeyo ku sahlo aayaddaani aynu idiin soo gudbinayno ee casharkeennan aad ku ogaan doontaan waa aayadda 66 ee suuratu al-anfaal acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim rabbi wuxuu yidhi al'aana khaffafa allaahu cankum wacalima anna fiikum dacfa fain yakun منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين آياداasi way midaan si gooniya iskugu baraarujinayno casharkeennan rabbi wuxuu leeyahay hadda laydinka fududeeyay arrinkii markuu ogaaday dacfigiina iyo tabardarrada idinku jirta waagi hore muslimiintu waa yaraayeen marka ciidanka rasuulka iyo ciidankii quraysh markay iska hor imaanayaan tiradu iskuma dhigmaan kuwa quraysh baa badan marka hal ninba wuxuu ku aaday 10 qof 20 qof waxay ku aadayaan 200 100 qof waxay ku aadayaan oo jabinayaan 1000 qof sida darteed buu ilaahay amarka hore nasakhay oo bedelay oo rabbi hadda laydinka fududeeyay dacfiga idinku jira daraadiis 100 hadii aad tihiin oo sabraysaan 200 baad ka adkaanaysaan macna ninkiiba labo marka u qalma hadii 1000 aad tihiin oo sabraysaan 2000 baad ka adkaanaysaan laakiin biidnillah idanka ilaahay waxa soo dhan ku dhacaya deynta ka fududaanaysa ilaahay idinkiis way caafimaadka ilaahay idinkiis way cudurku wuxuu ku dhacay ilaahay idinkiis way colaadu waxay ku dhacday ilaahay idinkiis way nabad waxay ku timaadaa ilaahay idinkiis way heshiisku wuxuu ku yimaadaa ilaahay idinkiis way risqu wuxuu ku yimaadaa ilaahay idinkiis barakadu waxay ku timaadaa ilaahay idinkiis wax walba koonkan ka dhacaya idanka rabbi bay ku dhacayaan wax iska dhacaya ma jiraan xikmad baana ku jirta ogaada marka ilaahay waa ka fududeynaya deyntaada ilaahay waa ka fududeynaya cudurka ku haysta ilaahay waa ka fududeynaya murugada bal iska akhrisa aayaddan insha Allah aayadda 66 ee suuratu al-anfaal isbuuc wax ka badan wad salaad kasto waajiba gadaasheeda hal mar akhriso waliba maalinta jumcaha ku beeg inaad bilowdid ilaahay waa ku furaya wax walba luquntaada saaranna oo dayn iyo waxyaalo kale culaysana ilaahay waa ka fududeynaya ilaahay idinkiis al'aana khaffafa allaahu cankum wacalima anna fiikum dacfa fain yakun minkum 100 saabiratun yaglibuu 200 wain yakun minkum 1000 yaglibuu 2000 biidni illah والله مع الصابرين والله مع الصابرين gargaarku wuu imaanaya farajku waa imaanaya laakiin sabir baa loo baahanyaa insha Allah